Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha ku taxan kanaalkeena youtube-ka iyo facebook page-keena waxaa idin leenahay ciid mubaarak kula caam wa antum bikhayr taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaah waxaa ka baryaynaa inuu naga aqbala acmaasha wan wanaagsaneed aan soo qabanay bishan ramadaan sida soonka salaadaha iyo sadaqooyinkii aan la baxnayba inuu ilaah naga aqbalo oo miisaanka xasanaadka inoogu daro waa wada ogsoonnahay in ramadaankan iyo kii horeba uu ku soo aaday waqti adag oo markaas coronavirus uu adduunka o dhan qabsaday suuragalna ma ahayn in cibaadooyinka sida taraawiixda iyo salaadaha qaar in ay suuragal ahayn in jamaaco lagu dukado si kasta ahaataba ilaah waxaa ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadooyinka waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay ramadaankan inuu noogu dhammaaday si wanaagsan haddii ay jiraan walaalo ku xanuunsaday ramadaankan gudihiisa waxaa u rajeynaa inuu ilaahay caafimaad deg deg a siiyo sidoo kale haddii ay jiraan dad ku geeriyooday bishan gudaheeda waxay kan u rajeynaynaa in ilaahay uu jannatul fardowsa u geeyo maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalinta caruur iyo ciroolaba ay wada farxi lahaayeen waa maalin mudan in la farxo oo la weyneeyo maaragtay maanta sidaas darteed waxaa idin rajeynaya inaad maanta ka faa'iidaystaan oo waqtigiina qaaliga aad la qaadataan dadka aad iyo aad u jeceshihiin sida qaraabada familka iyo asxaabta sidoo kale ha iloowin inaad caruurtana waqti la qaadato oo aad ka farxisaan meel kastoo ay joogaan sababtoo ah waa maalinkooda waa maalinkaaga waa maalinkeena waxaa idin leeyahay mar kale ciid mubaarak kula caam wa antum bikhayr waa anigoo ah cali maxamed isfaacil baashi oo idin leh mar saddexaad ciid mubaarak